السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكي مروان كسو دواada يوتيوب channelkeena Rush Production fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay walaal anaga iloobi inaad subscribe noo saarto sidoo kale commenti share iyo like maanta waxaa idiin soo gudbin doonaa youtuberada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan sida CK Drisley iyo arrimaheena lacagaha bilaha ee YouTube-ka ay ka shaqeeyaan okay waxaan u soo gudubnay qaybtan oo aan rabno inaan idinka tusno lacagaha ay sameeyaan youtuberadaas okay waxaan tagi doonaa qaybta searching-ka anagoo kusoo qori doono youtuberada bal sidaad u jeedaan waxaa noo diyaarsan youtuberada aan rabno inaan idiin soo gudbino magacyadooda waxaan uga bilaabi doonaa youtuberka ugu soo horeeyo waana liicaado youtuberka liicaada ka bilaabi doonaa insha Allah sida u aragtaan lacagta uu bishii ka sameeya YouTube-ka okay waa tan aan ku soo dhursanay sidaad aragtaan waxa arki kartaa in channel fara badan magaca liicaad uu ku sameeyay balse channelkan waa kan ugu soo koreeyo oo u jeedin liicaad official oo waana YouTube ka haysto ilaa 300 ilaa 336 kun oo subscribers sidaad aragtaan waxaan ku dhufan doonaa marka select channel si aad u soo gudubno oo aragno xogta iyo maxaliyada youtuberkan inta uu shaqeeyay bishii okay alright sidaad aragtaan wuxuu soo hordhigay xog fara badan sidaad u jeedaan ku saabsan YouTube-ka iyo wadanka uu ku sameeyay yahay meesha ugu muhiimsan balse arabna inaan idin tusno waa halkan waana qaybta ugu muhiimsan oo maxaa la yiraahdaa sidaad aragtaan bilaha qaybtan estimation monthly aad u jeedaan waa qaybta ugu muhiimsan wuxuuna bishii ka shaqeeyaa $272 ilaa $4,000 lacag u dhaxayso okay sidaad hada aragtaan waxa arki kartaan hadaad hoos u soo degto sidoo kale inaad aragto maalinle lacagaha uu ka shaqeeyo YouTube-ka sidoo kale xogtan waa xogtii ugu dambeysay oo bishii hadda ugu dambeysay xogta waxa loo soo gudbiyaa si bille tana waa xogtii ugu dambeysay lacagta bishaan uu sameeyay alright waxaan halkaas ugu gudbi doonaa liicaato waxaan usii gudbi doonaa YouTuberka xiga ee Munir waana halkaas ku soo qoran doonaa qaybta searching-ka okay markaan searchina waxaan noo soo baxay xogtan aad u jeedin sidoo kale waana channel fara badan mar walba waxa arki karnaa channel fara badan oo ku sameeysan magaca balse magaca ugu muhiimsan amba midka saxda ah waa channelka haysto ilaa 335 kun oo subscribers waana kaaskan saxda okay waxaan u gudbi doonaa marka inaan select channel dhahno alright waxaan noo soo bixi doonaa marka isla xogtii oo kale oo kana ilaa hoos ilaa okay waxaan u gudbi doonaa marka estimationka saxda waana ilaa $471 ilaa $7,500 intaas in u dhaxayso youtuberkan ka shaqeeya ilaa bilaha sidoo kale halkan hoos waxaad ka arki kartaan lacagaha ugu badnaay ee lacag maalinlaha laga shaqeeyay channelka marka estimationkan waa bisha hadda socoto okay halkaas waxa sidoo kale u gudbi karnaa Munir waxaan u gudbinaa YouTube-ka xiga oo magaciisa halkaas ku soo qoran doonaa asagana sidoo kale okay sidoo kale waa arrimaheena YouTube-kan u gudbi doono sida xog idinkaaga siino sidoo kale waa arrimaheena okay searchina soo dhigi doonaa sidoo xogtiisa inuu soo baxdo sidaad aragtaan okay sidaad aragtaan waxa noo soo baxday xogtii arrimaheena wasana sidoo kale maxaa la yiraahdaa aan rabnaa inaan soo gudbino sidaad u jeedaan waxa arki kartaan estimation marka aan fiirino arrimaheena inuu xoogaa ka sareeyo labada youtuber ee soo dhaafay uu asaga ka shaqeeyay $447 ilaa wax u dhaxeeyo xog u dhaxayso $7,000 bilaha sidoo kale hoos daa fiirisid waxa arki kartaa lacagihii maalinlaha uu shaqeeyay وانا marka xogta ugu muhiimsana waxay tahay $447 ilaa $7,000 estimation celcelis inuu dhaxayso inuu bille ka shaqeeyo alright halkaas waxaan u gudbi doonaa arrimaheena waxaan u gudbi doonaa youtuber ku xiga waa sidoo kale waana walaalkiisa Asad Xajiyo okay Asad Xajiyo soo qoran doonaa waxaan soo gudbi doonaa xogtiisa waxaan ku soo dhigi doonaa searching okay waxaan noo soo baxday channel fara badan sidaad u jeedin waxa meesha yaalo labada channel ay ugu horeeyo waa laba channel oo saxsan sidaad ogtiin saddexaad channelkiisii hore uu sameystay waa midka labaad channelka hadda uu ku shaqeeyana waa channelka hore okay waxaan soo dooran doonaa midka hadda uu shaqeeyo oo channelka ugu sareeyo isaga soo gali doonaa waxaan soo dhigi doonaa select okay select markaan dhahno sidoo kale wuxuu noo soo gudbiyay xogtiisa waxaan u jeedin xogtiisa halkaan ka arki kartiin waxaan arki kartiin lacagaha uu ku shaqeeyo ilaa intii la igtaay waana lacag $1,000 ilaa $17,000 meesha waxaa ka arki kartiin Asad Xajiyo inuu xoogaa ka lacag badan yahay bishaan lacagaha uu shaqeynayo inuu ka badan yahay youtuberada saddexda aan soo dhaafnay sababtoo ah estimationka wuxuu yahay $1,000 ilaa $17,000 waa celcelis lacaga aad u fara badan marka loo fiiriyo youtuberadii hore sidoo kale waxaad arki kartaa hoosta u soo degtid lacagaha uu maalinlaha ka shaqeeyo idan hoostaan ka arki kartaa
okay sidoo kale waxaan ka gudbi doonaa saddexaajiyo waxaan u gudbi doonaa youtuberka noogu soo xigo waxaan kor ku soo qoro doonaa sidoo kale waa youtuberkeena waa Darisle waxaan sameyn doonaa inaan isagana soo share kareyno oo aan ragno xogtiisa waxaan soo dhigi doonaa searching okay waa kana waa soo galnay sidoo kale waxaa arki kartiin sidoo kale Darisle inuu leeyahay laba channel oo hadda ku shaqeeyo waana Darisle Abdi oo channelka weyn iyo channel kale waxaa jira la yiraahdo Darisle Shaarcad oo asagana sidoo kale video u soo dhigo marka qaar balse anaga waxaan u gudbi doonaa channelka saxda ee weyn Darisle Abdi kaas waxaan soo dhigi doonaa select channel sida xogtiisa u aragtaan si toos ugu shaqeeyo maalin u soo dhigo okay sidaad aragtaan waxaan u soo gudubnay xogtiisa meesha waxaa ka arki kartaan Darisle inuu maalinle ka shaqeeyo estimationka $817 ilaa lacag u dhaxayso $13,000 bishii lacag fara badan marka loo fiiriyo sidoo kale balse still waxaan arki karnaa inuu xoogaa ka hooseeyo youtuber ka horeeyay Asad Xaajiyo hoostaanta usoo tagtana waxaa arki kartiin lacagaha uu sidoo kale birthday ka shaqeeyo sidoo kale waa kana marka channelkii video ugu dambeeyay uu soo dhigay Darisle waa kana okay halkaasna waxaa u gudbi doonaa marka Darisle Abdi waxaan u gudbi doonaa youtuberka ku xiga waana youtuberka CK waxaan soo qori doonaa marka CK alright waxaan soo dhaana searching marka waxaad arki kartiin channel fara badan ayagan inay jiraan balse channelka saxda ah waa CK King Films and Vlogs waana ka rabno waxaan ku soo dhufan doonaa maxaa la yiraahdaa ishig balse subscribers ka daartiin waa 0 sababtoo ah waa qarsan yahay subscribers kan marka waxaan dooran doonaa select channel kan ugu soo horeeyo saa xogtiisa u aragtaan okay waxaan soo gudubnaa marka gudaha waxaad arki kartaan xogtiisa sidoo kale waatana marka youtuberkan wuxuu ka shaqeeyaa CK ma bille $826 ilaa inuu dhaxayso $13,000 waa monthly hadaad aragto waxaa iska ag dhow yihiin Darisle sababtoo waa laba youtuber oo mar hore soo galay labadoodan aad iska ag daba dhow yihiin waana intaas lacag macnaha estimationka sidoo kale hoos daafirso waxaad arki kartaan in maalintii lacagaha uu shaqeeyo sidoo kale asagana waana xogtiisii oo dhan ku jirto estimationka waxaan ka hadlaynaa waa bille waa monthly marka CK asagana waa kana alright marka kuwaas waa 6 youtuber aan rabno inaan idin tusno lacagaha celis ahaan bishii ay shaqeeyaan sidoo kale waxaad arki kartaan hadaad fiiriso 6 youtuberka ugu shaqeeyo waana laga yaabaa inay surprise kugu noqoto laakiin youtuberka ugu badan lacagaha ugu badan ka shaqeeya bishii waa Asad Xaajiyo waa youtuber iyadoo waliba youtuber waaweyn meesha ay ku jiraan balse Asad Xaajiyo waa youtuberka ugu badan ee lacagaha ugu badan shaqeeya sababtoo waa $1,000 ilaa $17,000 lacag u dhaxayso taasoo noqon karta celcelis ilaa $5,000 ilaa $6,000 alright marka insha Allah halkaas ay ku egtahay 6 youtuber balse hadaad naga codsataan insha Allah waxaa jira youtuber fara badan oo Soomaaliyeed oo ayagana lacag badan ka shaqeeyo YouTube-ka haddii aad naga soo codsataan waa soo gudbi doonaa qayb part 2 aan ka sameyn doonaa video hadduu Alla idmo alright marka waad ku mahadsantihiin daawashadiina sidaa iyo nabadgelyo